laakiin waxaan rabaa inaan taliyayaasha caawa iyo ciidamada halkan jooga aniga iyagu aan runta isu sheegno idinkuna aad markhaati noo noqotaan laylada ma hadle waxaan rabaa inaad dhageysataan mushaarka ciidamada waxaa bixin jiray dowladaha Mareykanka Turkiga isu taga Imaaraadka Carabta waxay ku bixin jireen malaayiin dollar hadda lacagtii ay bixin jireen iyagu ma bixiyaan waxaa bixiya canshuurta laga soo ururiyo shacabka Soomaaliyeed waxaan markaa rabaa inaan ka hadalno 2017 inta dawladdeena ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar 2018 waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar 2019 waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar 2016 iyo 2017 waxaa lagu bixiyay 43 milyan iyo 47 milyan waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabtano waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah askari walba oo la diiwaan geliyayna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaaya inuu maqlo dib habeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyay sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeyn lagu sameyn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu ma na aaminayso waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha banaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dawladda Soomaaliya oo aad hotel waardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama been lagu soo qoray ama kan email ay jirto dhaqankaas uu ka soo dhamaaday inta aniga dalkan ra'iisul wasaarahan ka ah wiilashaas dhalinta yar oo raba naftooda inay huraan waxaan rabaa inay istaagtaan kulligiin waxaan rabnaa inaan ku heshiino lacagta loo qoondeeyay wiilashaas iyaga inay soo gaarto waan dhaxla laga bixin oo bil walba mushaarkooda ay qaataan kuwa garaadaha waaweyn haystana waxaa la rabaa kulligeen inaan aqbalno shaqadeennu inay ahaato shilinka nala ku aaminay iyaga inaan gaarsiino waxaan rabaa marka inaan u sheego taliyaha xoogga iyo taliyaha booliiska iyo qof walba oo garaada haysta waa inaan ku heshiinaa in ciidamada la diiwaan geliyo xerooyinkooda ay joogaan raashinkooda waa annaga bilownay 50% ka mid ah ama $30 bil walba akoonkooda in loogu soo shubo qofkii la diiwaan geliyay iyadoo dhicin 10 sano waxaan rabaa
إن أسكري والبا ولا ديوان قليل ولا جيي حرديسة وعيدا كو أذيقايو هي إن أنكل الدونو كو انت صفك اللي سوق قليل للديوان قليل دلك آن أشقين كان دي مرايا مشار لمدنا قاتو لكن كان صومالي نمر لغو قاري مايو دولة نمر لغو قاري مايو من هو أقبلك ما خلط با انتاسي إنا نسو شاقو ما خلط با انتاس لذين شاقو إن نقر شيء بشير وحنكربا أسكري والبقو الديوال قرشن ودلك هو أذيقا يا مشار كيسا راشين كيسا إيا دريال كيسا إني أنيقا إيقوي مادان لكن دولة الصوماليات معهن مشروع عيرتا عيداً كنا وماشي أقدم بيسي أو نقن كاسي وكدع لها معلومات مركا وحال لها عيدا ما أيان مشار لسين قف عن مشار كيسا إيا حقوق ديسا لسين مجرتو انت أي كم مقنت هنا وانت للديوان قليل فضلاً جاية قوبها اللوغو تلقلي كو ديوان قليل كو كنترول كو هايا حقوق دولان أنا كيكا صدونا مرخاتنا كأهادا صوماليه